نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادني الله منها وإياكم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ولا ليال حلقدين لباد waxaan wax ka yar tilmaamaynaa insha Allah ta'ala xukunka soomku uu leeyahay soomku walaalayaal waa faral weeyi ilaahay uu faral yeelay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون dadkii muuminiinta ahaayo waxa la idinku waajibiyay oo la idinku faral yeelay soom sida loogu waajibiyay kuwii idinka horeeyay si aad u cabsataan oo Allah ka cabsi aad u la timaadaan marka aayadda waxa laga qaadanaya oo ku jira soomku inuu yahay marka mid waajib ah isla markaana waxa kale oo ku jirta inaanu inagu gaar ahayn ummadihii horena lagu faral yeelo lagu waajibiyay ayaa aayadda ku jirta wuxuu ilaahay ku sheegay inuu yahay maalmo tirsan soomka sida aayadda ka dambaysa ku sugan saxaabada rasuulkuna ay ka warrameen waqtigii hore qofku wuxuu ikhtiyaar u lahaa inuu soomo isagoo awoodi karaaya iyo maye inuu iska afuro oo uu markaa bixiyo fidyo inuu bixiyo wacala alladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskiin ayaa Allah subhanahu wa ta'ala u markii dambe waxa la faral yeelay oo la waajibiyay qofka awoodi karaya inuu soomo oo khiyaarkii ayaa meesha laga saaray Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri faman shahida minkum ash-shahra falyasum kaydin kamid ah xaadira bishi ha soomo ama kaydin kamid ah arka bishi ha soomo ba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إسلام كوحا لغو طول ديسي أو لغو تاغي شانتير واتري الرسول صلى الله عليه وسلم وقريتان كلا قراية من حق لغو عاودين نجرين إلهي مويالي محمد الرسول كي إلهي نويهي صلاة دول لأوغو زكاة دول بحيو بيت كي إلهي أو لحجيو يصوم كرمضان تبو الرسول صلى الله عليه وسلم علماء المسلمين تنوى كو إجماعنا وإسكو وافقين soomku inuu faral yahay ijmaac qat'i ah oo go'an sida daraadeed ba waxay culimadu yiraahdaan qofka waajibnimada soomka diida inuu faral yahay diida uu gaaloobaya waxa laga dalbaya ama la oranaya marka toobad keen hadii uu toobad keenana mid islaamnimadii ku soo noqday buu noqonayaa hadii uu toobad keeni waayana gaalnimo ayaa loo dilayaa sidaa hadduu ku dhintana la mayri maayo la kanfi maayo lagu tukan maayo loo ducayn maayo xabaalaha muslimiinta lagu aasi maayo meel fog baa marka la isaga qarinaya marka waxa weeyaan urtiisa iyo lagaga waxa weeyaan asturaya dadka ehelkiisa ah aragtida ay arkayaan soomka walaalayaal waxa la faral yeelay sanadii labaad ee hijrada rasuulku markuu jiray sallallahu alayhi wasallam sida daraadeed rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu soomay culimadu yiraahdaan 9 sanadood buu soomay soomka taba walaalayaal waajibnimadiisa ama sugnaantiisu waxa ay ku sugnaataa laba arimood midkood weeyii arinta koobaad waxa ay tahay bishii ramadaan oo la arko Allah wuxuu yiri faman shahida minkum shahra falyasum qofka idin kamid ah bishii arkaa ha soomo rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu idha ra'aytumul hilala fasumu bisha hadii aad aragtaan sooma buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam aragtida bisha la arkayo looma shardiyo qof walba inuu arko ee hadii uu arko qof muslim ah oo marxaati gal ah bilashada bishii ramadaan dadkii waxa ku waajib noqonaya taa in ay ku soomaan waxana loo shardiyaa qofkaasi ka marakacaya inuu bishii arkay
inuu yahay muslim baaliq ahoo qaangaadha caaqil ahoo miyir qaba lagu kalsoon yahay warkiisa ammaanadiisa iyo aragtidiisa awgeed buu loogu kalsoon yahay marka shardiga koowaad waa inuu muslim yahay haddii aanu muslim ahayn waxa weeyaan maragiisii ma noqonayo mid la aqbalayo oo kama markhaati furi karo ama lagu soomi maayo aragtida uu sheego nin reer miyaa rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu yidhi waxaan arkay bishii rasuulku wuxuu ku yihi atashhadu an laa ilaaha ila allah ma qiraysaa mid xaq lagu caabuday inaanu jirin ilaahay mooyaane qaala nacam haa buu yidhi rasuulku wuxuu ku yihi atashhadu ana muxamadan rasuulu llah ma qiraysaa muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay qaala nacam wuxuu yihi haa rasuulku wuxuu la hadlay bilaal wuxuu yihi yaa bilaalu adin fi nnaasi falyasuumuu gadan bilaalow dadka ogeysii ama u dhawaaq biri ha soomaane rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed haddii uu gaal yidhahdo waan arkay isaga waxa aragtidiisa lagu soomi maayo sidoo kale waxaa shardi ah markaa inuu yahay qofku qaangaadh haddii aanu qaangaadh ahayn oo uu ilmo yar yahayna lagu soomi maayo haddii uu waalan yahay oo aanu miyir qabinna waxa weeyaan aragtidiisa mid lagu soomaayo ma aha waaya aragtidaasi waxa ay noqonaysaa markaa looma shardiyo inay dadkaasi ay bataane hal qof oo lagu kalsoon yahay oo waxa weeyaan loogu kalsoon yahay markaa cadaaladiisa iyo ammaanadiisa oo aamin ah oo aan lagu aqoonin been oo aan lagu aqoonin markaa in hadalkii degdeg aan lagu aqoono qof fudud aan ahayn qof hadalkiisa laga shakiyaya aan ahayn araggiisu caafimaad qabo oo uu wanaagsan yahay haddii araggiisu aanu wanaagsanin oo uu daciif yahayna lagu soomi maayo waan arkayda uu yidhi waa lagu soomayaa hal qof haddii uu noqdo cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ayaa wuxuu yidhi taraa annaasu lhilaala dadkiibaa bisha istusiyey oo eegay buuri faahbartu nabiya sala allahu calayhi wasalam anii ra'aytu nebigaan u sheegay inaan arkay fasaama wa amara annaasa bisiyaamihi rasuulku wuu soomay dadkiina wuxuu amray inay soomaan cabdillahi bni cumar kelidii markaa rasulku sal alla alay slam saas oo kale waxaa kaloo culimadu markaa ay raaciyaan oo ay idhahdeen qofku haddii uu arko bisha waxa ku waajib ah dadka madaxda ahee dowladda inuu u sheego oo uga waramo si iyagana dadka ay u ogeysiiyaan oo ay ugu sheegaan sidaa cabdillaahi bni cumarba rasuulka intuu u sheegay rasuulkuna uu bilaal yidhi ogeysiyo dadka u sheega uu yidhi markaa sidoo kale haddii la iclaamiyo oo xagga xukuumadda ama dowladda muslimiinta dadkaa u talinaysaa ay sheegto oo iclaamiso in bishii ay bilatay qofkii waxa weeyaan dadkii inay ku soomaan ayaa waxa weeyaan korkooda oo ku waajib ah weeyi waana in la ilaaliyo oo intiiba la ilaaliyo oo la sheego oo laga warhayo qofkii arkay waxaa la mid ah ramadaanta bilashada markaa shawaal iyo bilashada markaa dilxije ayaa iyagna la mid ah waayo saddexdoodaba waxaa ku tacalluqa ama ku xidhan ama ka ratimaya waajibaad ramadaan bilashadeedii waxaa ku xidhan ama ka dhalanaya waajibkii soomka shawaal bilashadeedana waxaa ka dhalanaya waajibkii afuritaanka ee soomka laga afurayey dulxijana waxaa ku xidhan waxa weeyaan xajkii oo isaguna waajib ah ayaa ku xidhan bishii hadday saa u sugnaato sugnaanshiyaha sharciga ah lagu xisaabtami maayo ama lagu soomi maayo xisaabta kaalandarada iyo xisaabaha waxa la midka ah iyo manaasilsha iyo gudadka dayaxu uu dego waayo rasuulku waxa uu ku xidhay waa aragtida bisha idaa ra'aytum alhilaala fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faaftiruu buuri haddaad bisha aragtaan sooma haddii markaad aragtaanna afura buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrinta labaad ee lagu soomayaa waxa ay tahay in la dhammaystiro soddonkii bisha shacbaan oo waxa weeyaan bishu waxa ay noqotaa soddonna way noqotaa 29 way noqotaa bilaha islaamiga ah kama bataan kamana yaraadaan soddonna kama badato 29 kama yaraato rasuulku sallallahu alayhi wasallam qowl ahaana way noogu sheegay ficil ahaana way noogu sheegay maalin baa wuxuu saxaabada ku yiri ashhuru hakada wa hakada wa hakada saddex jeer buu gacmihiisa yiri hadana wuxuu ashhuru hakada wa hakada wa hakada macnaha markii koobaad 10 farood buu saddex jeer hakada wa hakada wa hakada bisaas iyo saas ay noqotaa macnaha soddon markii labaadna wuxuu ashhuru hakada wa hakada wa hakada markii saddexaad buu far laabay ama suul macnaha 29 way noqotaa
marka waxa dhici karta 2 bilood 3 bilood 4 bilood oo dhammaystiran inay isku xigaan oo mid dhimano 29 ay ku xigto waxa kale oo dhici karta 2 bilood 3 bilood oo 29 inay isku xigaan oo ay tu dhammaystiran ay ku xigto laakiin sida badan ee loo bartay bil ama 2 bilood oo dhammaystiran ayaa isku xiga mid marka 29 ah ayaa waxa weeyaan ku xigta sida loo bartay waa sida marka bishii hadii la arki waayo صدنكي شعبان بالا دمايستريا رسولك صلى الله عليه وسلم wuxuu صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته كسوما marka aragtidiisa kuna afura aragtidiisa fa in gumma alaykum ash-shahru fa'uddu 30 hadii la idinka qariyo bishii صدنكي tiriya oo dhamaystira riwaayada kale fa in gumma alaykum fa akmilu ciddata sha'ban 30 hadii bishii la idinka qariyo waxa dhamaystirtaan buu rasuulku صدنka sha'ban